السلام عليكم غيرت قيمة غاية وناقع سيدة شرفت الموضان وإذن سلام مركوات وحواي أردول قفص ولا أبتو هذا بس إلياس دول قفص ولا أبتو مركلته عاوة وبلنقات كهبين وكابتن بيلو وكله واجي كونكوا بيستيس محاضرة bulshada ku shamuntay كبعدنا موفي ساكو دعاي ma ka hay baad raadada كونكا شين الصوماليغا أيان كشاكينينا عاوة كونكا شين الصوماليغا dhibaato badan ay hayso waa duruufeysan yahay gargaar u baahan yahay wixii madaxweynayaasha soo mar wadankana ilaa hadda wax gargaar u fidiyay waan la'nahay marka sidaas darteed kunka ayaan soo qaadayna tusaale wallahi hata markii leeyahay kunka laga hadlaa kunka hota wuxuu maraa mataqaanaa xilligii ugu xumeed oo wadan magaalo walba oo Soomaaliya kamid ah laga soo diiday waa bestis bulshada ku shamuunti buufisaa ku dhacay kunka waa bestis bulshada ku shamuunti buufisaa ku dhacay kunkii naftirkiisa la diiday hadda u dambeeyay labada asbuuc u dambeeyay waxay dhibaato weyn ka taagnayd deegaanada Puntland oo kunkiiba la diidayba deegaamada Puntland macnaha kunkii waxa ku dhacay koobi uu dhaafay koobi kale uu dhaafay koobi kale uu sii dhaafay waan gartay 15 koobi oo maraa okay haddana kii jajjaxnaa oo tacbaanka haana والديه كوبي شي لقات الميغان حد waxaa soo dhow A4 aan daawacday la keen kunkii A4 wada laga saaray ay kamare wadankii dawladda ka jiro okay abdiyo su'aashan ku weydiinayo oo kunka ku saabsan waxa waaye isleedahay kunkan waa laga gudbi karaa oo yaani si fudud loo gudbi karaa oo lacag kale to la soo saari karaa niyo hota lacag wala soo saari karaa okay hota lacag waxa soo saari karaa nin dawlad waan gartay dawladda hada jira ma taqaanaa madaxdii hota wadankan xilligii Cabdullaahi Yuusuf iyo xilligii Shariif waan gartay ku meel gaaray ahaayeen waa gartay saasay tahay lacagtan lacag dhaantay ay jirto koobi xogaa ka fiican tana wadanka yaala markaas waa gartay oo mustaqbal oo soconay waa gartay nimankaas niman jimhado iyo dagaalo ku yimid ka hayeen waa gartay lacag ma bedeli karaan laakiin laba dawlad ah wadanka soo martay oo labadaba hadda ay dhamaadeen ay koonan kunka shilin marna soo hadal qaaday ayis ayagoo waqtigooda u dhamaaday iyo kunka shilin oo weli waxba laga soo qaaday macnaha waxay ay ku mashquulsan yihiin ba xildhibaan kursigiisii dawladdiisii shacabkii way u baraabaxayaan waan gartay diyaar u yihiin waddo cali jiraan laakiin nin ballan qaad sameynaya hadda ma ogi doorashada dhacda waxay maanaysaa inay ballan qaad ay dhihi doonaan wadnimo shacab oo haddaan doortaan kunka shaniga bedelaynaa taas doorashada hanoo dambeeda okay yani waxaan ku guda jirnaa ilaa weli kunkii isleedahay cabdiyow in kunkii la bedeli karo oo yani lagu bedeli karo lacag kale oo Soomaaliyeed oo fudud isleedahay sida hadda inta doorashada ay dhicin may hadda ma soo hadda xilligan doorashada hadda xilligan nin walba kursigiisu waa carruur tahay waa gartay nin walba nina wuxuu imaanayaa soo hadda u fadhiisanahay u soo baratuntay waa gartay nimana waxay u soo bartiminayaan si u soo laaba lahaayeen waa gartay nimana waxay u bartiminayaan si kuwii hore u barkici lahaayeen waa gartay macnaha hore meesha u dhimiyeen way ka tageen hadba soo laabanayaan waa gartay kuwii kuwa aan ahayn oo kuwa aan baahanayaal oo cusubna waa yimaadeen kuwa baahanayaal oo kuwiiba ka sii daray way cusub yahay ninka hamba jadiid waayaba inuu hadda wax qabtaan waa ku leeyahay wuxuu qabanayo waxa waaye amniga siyaasadda soo kursi u adkaysan lahay nin soo hadal qaaday wali kunkan shilin warnimada kunkan kaligiisa masaakiinka ee dhamaaday oo tacbaanka oo loo bedela duruufta ku dhacday waa gartay ninka hadlay ma jiro okay cabdiyo sida hadda maqaal anagu lacag shilin Soomaali lagama isticmaalo boqolkiiba 99 waxaa la isticmaalaa lacag qalaad sida dollarka صح ayaa maanta hadda koob shaa u baahdo waxaan ku gadanayaa $1 wayba tahaba marka ma isdhigi kartaa lacagteeni maba la isticmaali doono lacag Soomaali leedahay oo yani waxaa la isticmaali doonaa lacag qalaad oo wadan kale oo leeyahay hadda maalinta u dambeeyay banaanbaxa arkay shacabka Boosaaso iyo waxay ka banaanbaxayeen mataqaanaa waxay ka banaanbaxayeen lacagta Soomaaliya mataqaanaa hadda muqdisho markaa joogto oo qof toogsanaya si wax maagtid 50 سنت او توري $1 oo yani $1
telefoonay wataanba waxaaba ilbaxay xataa ninkii tuugsanayo wuxuu rabaa kan tuugsanayo oo laamiga fadhiya telefoon av plus u furimaystaa abu waxaa leedahay niyo 10 senti kuu stuuray waa gartay ama 20 senti kuu stuuray waa gartay 50 senti kuu stuuray oo lacag shilin Soomaaliga xataa Ma meeshaas jirtaba. heerkaasi marweyda meeshaas boosaaso waxaa loo banaan baxay waxay ahayd madaxweynaha hadda uu weliba qasab ku soo rogay inaan lacag $10 keer aan lagu isticmaali karin mobilka $10 ها العكير واقع. معناها لو $1 $1 $5 iyo mataqana shil Soomaali waxaan la isticmaalaa hadii lacag $10 ka bato waa dollar okay dollarku waa la ogol yahay yani waxa loo ogolaado oo kaliya $10 wixii ka yar in oo shilin Soomaali ah loo markii isticmaalo hore waxaa dagaalka keenay mataqana aan ku faasiyo waxay okay $1 nus dollar nus 10 senti 20 senti macnaha shilin Soomaali dhan boosasay laga waayay gacad ku baxay dadku way xanaaqeen marka waxay dhaheen war waxaan suurtagal ma dollar la inaan ku kala gadanay lacagteeni jaajiixanyaata gudaha nota laga qaadanaka waa gartay hadduu qof macnaha lacagtii cusbeed hadda dollar anada kala qaadano ani 100 milyan hore Italia qaadanay qofna xanuun waay daadii noqoto Soomaan marka ma suurtagalida Allah marka madaxweynaha amar wuxuu soo rogay madaxweyne Puntland waddanka Sham iyo waxa uu leeyahay okay madaxweynaha Puntland okay waa gartay ay ureerin hadaafta maayir inaan ku dhaho dadka Soomaaliya kala maayir hadaa gudoomiye arti macnaha goboleed arti dadkaas ma ogolo okay ma madaxweyne yani hadalkaaga inaan muujiyo oo kaliya ku weydiiyay taasi wax dhibaatana adiga marka madaxweynaha Puntland hadda wuxuu soo rogay telefoonka dadka lacag isku tuuraya lacag $1 iyo $2 isku tuuri karo mamnuuc waaye waa isha Soomaaliya kala qaataa okay haddii $10 wixii ka badan isku tuuri karaa okay laakiin xamar su'aashaas $10 senti isku tuuraa su'aalaan ka dhex wataa aan ka dhex galay su-aashaan ku weydiinayo waxa waaye lacagtan hadda la isticmaalayo oo dollar waaye la dhahay dowladda sharciyeysay ها دنتا شرعيسي العكل لما هايو sidee Waayo- danta u sharciyeysay دنتا عشر عيسى كل شيء هذا بيلا درتا ما نقول بيلو بيلا درتا waan gartay haddii waagii hore qofkii qoyskii loo soo diro $100 3 milyan oo lacag shin Soomaali u qaadan jiray barwaaqi ahayd boqolkii dollar waxaa tiri waagii 3 hore milyan ها 2 مليون 3 مليون waagii hore macnaha xilligii aan joogo waddanka kale ka hadlaa mugtahay waa gartay 10 sano ka hor waa gartay hadda wixii ma jiraan waa qoyska hadda $400 u dirto muqdisho jooga ma ku filna may yani ku filnaash iyo meeshii shin dollar la isticmaalaa kamaan hadlin yani ma maya fahmin aan kuu sheeg waxay hadda dollar la isticmaalaa waa gartay يعني 10 يعني الربا هل $1 بدونه موس الربا $1 بدونه هذه واحد بحدي كفاية تابيتها فلست $1 ربا بحني أما لو $1 معناها طبقوا سواء بحني سحلاه ماشي واحد $1 مقايضة هاف باستي هذه ما يقول عندك كمان جبت هذه beesadana kunaa u yar kunaa u weyn abbaabo warkaasaanu bogaaniga aniga 3,000 shilin Soomaaliya ogaa waagii gudub دحكن سؤال أكيد ها ما أنت واحد بقى لو $1 حقا لو أنا ما يقول $1 حقا والله ما شيء كري واي مر هore igu dambeeyay wadanka horta وين $1 ما تقال كون كيشين يعني ودنبا midda aan tiigsanayo waxa waaye dollar oo yani waa dollar waa wadan baas sharciyeystay laakiinse lacagtani dollar ma ahe dowladda u sharciyeysay تو دنتا شيء سوى كل شيء قبل ee danta markii dadka dhan ee dan ay ku wada qabeen Ha. waa la gartay laakiin tani دولار كات ma سيس dadka ummadda Soomaaliyeed wada qabta mase shakhsiyaad waa dantan qaba ضد كودنا وذا قبا فقير يتاجر waa gartay دولار كاسي وذا قاتا مانتي imaada fahmin war dollarka haddii caadi dollar ahaan u bixinayaan imaada fahmin hadalkayga meesha u socdo العكل ما بيحسب حكم بحنايان يعني دولار ahaan oo muuqdo dollar muuqdo hadii wax ku kala gadanayaan war la garto waay laakiin Maye. lacag aan la aqaanin waxa ay tahay ayaa la isticmaalaa العكت الاستعمالايو شركته دحمرتها shirkadaha معناها واحد جيرو هذا انا waxaan leenahay hadda Sweden joogna Swiss isticmaala sama sax Swiss ki askare company bangiga iskale ha bankiga lacagta ay ugu jirtaan aniga bangiga lacag ku jirta sax bankigaas markaan wax gadanayo oo hadda aan qofka wax gadanayo haddaan cash wadanin maxaa isticmaalaa swish Swisskiga sax laakiin wadanka waxa waaye waxa dhamaan hadii kunkii koron ka dhamaado
halkun maanta Sweden ku harto kun koron kaliya ku harto oo kunkii uu soo afxirmo oo kunkii tacbaan qodo jeexmo si Soomaaliya kale Sweden tusaalaha kusoo qaadanaydo laguma soo qaadan karo sababtoo Sweden banki ee dowladda sharciyeysay oo yacni la og yahay hata waxa ku dhahay halmad waa ku fahansanahay lacagtan oo yacni ay bixinayaan bankiga dowladda way u sharciyeysan tahay way ogyiin ama iswiish ku bixi ama contact u qaado yacni cash aan u qaado labadaba way ay la socdaan inay lacag oo lambaraysan oo taariikhaysan ee dowlad ka soo baxday registerkeeda way ogyihiin okay taa kala hadba ma kala hadlo warkay si aan kala midda aan kala hadlayo waxa ay tahay tani dowladii u sharciyeysay u tiimbareysay يعني waxa waa lambar switchka lagu sheego waa lambar qorto Soomaa adiridi haduu lambarka gudaha kugu jirno ma diri kartid Soomaa yani bangi ayaa lambarkaas ku siiyay lacagtaada kaaga bedeshay soo sax ma ayaga bangi dawladda u diiwaan gashan ma yihiin oo yani dawladda u yani u register gareysay inay lambarada dadka siiyaan lacagtana cash ay u qaadaan okay ma ahane dhibaatada jirta waxa ma taqaanaa horta wadanka waxaa burbursan systemkiisa dhaqaalaha dhan waa gartay wuu burburay wadanka dagaal ka dhacay waa lagu kala yaacay wixii dhammaay waxay noqotay jaantay furan nin walba ma taqaanaa adiga maxaa haysto shirkada ayaa waxay keensadeen inay ma taqaanaa ayaga lacagihii loo dhigto bangiyadooda iyo waxyaalahooda ayaga dadka aaminsan yihiin macnaha Ilyas wuxuu haystaa shirkadda Hormuud wuxuu ka haystaa numberkaas AV Plus ugu furan lacagtiisa halkaas ugu jirtaa hadduu dukaanka wax gadanaya intuu ka tooranaa hadduu gurigiisa adiga u rabo intuu ka tooranaa macnaha wax alla wuxuu rabo ma taqaanaa telefoonkiisu ka dhex isticmaalanaa maadaama aysan jirin bangiga dhexe ee Soomaaliya inuusan maamulin lacagtii waa hadduu bangiga Soomaaliya maanta uu lacag haysan lahay kunkaa shilin tacbaankana waa la bedeli lahay oo la isku xilsaari lahay macnaha in dowladda lacag keensato dhaqdhaqaaqa markaas dowladdu waxay noqon lahayd waxaa kale waxa kama jiray noqon lahayd laakiin meesha waxaa ka maqan kaalin dowladeed ka maqan shirkadna ma buuxin kartaa kaalin dowladeed okay sida hadda wada ognahay laba dowlad waxaa dhahday federaalist lagu soo doortay labadooda mid ka hadlay dhaqaalaha Soomaaliya meesha uu ku socdo ama bangiyada ama lacagahan qaabkay u socdaan ma jiraan niyo wata dowladii Xasan Sheekh ka soo bilaabayna dowladii Xasan Sheekh waajibta lacagaha in mar soo hadal qaaday oo bangi Suudaan ku yaala heshiis la galeen lacag badan la daawacay haddana lacagtii waa la xayir ma garanayo sababta loo xayiray xisaabtu kuma weysi waa gartay sabab aan uga karo ma ahan yani lacagta ee daawacitaanka ka hadleen way daawaceen sida aan maqlay may daawacitaanka ka hadleen waa daawaceen ba ka soo qabada yani ma ka hadleen lacagtan oo bilaa bankiga bilaa registerka bilaa dowladda ee wadanka lagu wado يعني هذا اللي استعماله كونك شيء الصومالي كان نقرب حاجة نقرب وحنا كان سياد برا الله ونحرسته سما صح كونك سياد هل كابانو استاجي كونك سياد صار تعبان الله يستوي السوق ورقدي سي أفرت الضرف كجاجة حنبه حاجة نوريك صح أوكي لعقتان وهذا في بلاس كان هذا يعني سويش أهم سيدا أنا قاعد استعمالنا لو استعماله أيوه دولتنا الصوماليين ما كهاد من دولة أمر أهين يعني لعقت ثاني ما بك هذا كرانو ومضح عمره هيام هيك هذا أيكيا مش كوسنا ومتقانا تودي هيك تابع حدي وشعبك ماشي كانوا لا ينفعنا لسه قرام أوكي ومد الصومالية دوح وهيام لهم حبا ومحلات دور تابع وايو ما كهاد فيري تاس هبين هراك هذا ما يعني وحقول الجيد متقانا haddiiba maanta lacagta waa tan ugu fudud oo yani dawlad wax inay ka hadasho loo idmado ugu horeedo waa dhaqaalaha wadanka iyo shacabka aan waxay ku sheego dawladda ma taqaanaa hada dawladaha hadda soo galay dagaal ay wali ku jiraan ay kraftkooda mutay dhinaca laga haystaa dhinacay ka dhexda asaysta ma taqaan wali aniga yani saa ani aaminsanahay umaynan gudbin systemkan ay lacagaha ku xadidi lahaayeen lacagaha ku kala saari lahaayeen waayo ayakiiba lacag ma keenin haddii ayaka lacag soo samaysan lahaayeen nooc ceertaba ha noqotee
oo ay lacag soo daabaca lahaayeen lacagta hadda jirta lacag bedelayda mataqaanaa waa garta macnaha waxay ahaa lahayd ayagii laftirkoodiyaa waxay awood saareen nabadgelyadii kale mataqaana arrimahoodii siyaasadda wasiirkan see loo bedelaa xildhibaankan see loo soo adkeeyaa xildhibaankan kale see anuu xaggii kusoo maraa wasiirka anagu naga soo horjeeda bedel ra-iisul wasaaraha anagu naga soo horjeeda bedel ayakiyaa macnaha ayakiyaa isku mashquulsan dantooda ayay ka wada hadlaan ama ay ku mashquulsan yihiin laakiin danta ummadda Soomaaliyeed waxa uma hayaan sa ana aaminsanaha waay dadka ma oga waxay aaminsan yihiin okay sa ana aaminsanahay waxa waaye inaysan nimankan aysan weli u soo jeesanba inay shacabka caawiyaan masaakiinta oo lacagtan lacag dhaanta keenaan oo mataqaan lacagtan markii lacagtan la keenayo wax u dhigma waa in bankiga la dhigaa oo si lacagtan awood u yeelato okay hal su'aal ka dhex weydiiya ma isleedahay lacagtan waxay u diidan yihiin dhaqaalaha wadanka in la ogaado ay diidan yihiin yacni haddii lacag soo daawacaan ama ee lacag ummadda Soomaaliyeed ay soo saaraan oo lacagni bangi la wada ogyahay oo Soomaaliyeed la furaa yacni isla xisaabtan ayaa imaan karo biri ka maalin sidaas darteed maadaama ayagana ay haystaan muddo 4 sano afartooda sano ayagoo kaga faa'iideysanaya lacagtaas dhanba inay daboolaan ayna rabin inay lacag ummadda Soomaaliyeed ee leedahay inayna soo saarin niyo waliina ku sheegaa meesha dhibka jira wax waay mataqaanaa wasiirkii ya maaliyadda kale macna dowladda Soomaaliya wasiir maaliyad leedahay waa garta wasiirkii maaliyadda mataqaanaa oo kale hadda asaga mas'uulka ahaa lacagahan inuu soo daawaco waa garta inuu dhaqaalaha wadanka macnaha hadda mushaaraadkii shaqaalaha dowladda rayidka ya militariga booliiska wax walba meel saariye mootay waa garta iyo lacag hadda la siiyo waa lacagaha kaalmada imaada iyo lacagaha cashuurta dalka ka soo baxaya oo dekada iyo barka imaada waa garta wixii lagu kabaa dadka loo qeybiyaa waa garta ayada laftirkeeda laguma bixiyo shil Soomaali ayada laftirkeeda waxa ku baxdaa lacag aan xisaab yani xisaab ahaan ku baxdaa lacag aan diiwaan gashnayn ayay ku baxdaa ma jiro adiga maanta hadda aad shaqaysato mushaarkaaga bangiga kugu soo dhacaa waxa kugu soo dhacaa lacag taqaanid oo number ah oo markaa banaanka ula baxda kala bixiyay waa garta ayakana waxay haystaan lacag telefoon ah telefoonkaasi wax ku gataan waxna kala baxaan waa garta ma ku dhacay oo waxa ay leedahay maanta dowladda ayaaba waxay isticmaashaa lacag aan registerka dowladda ugu jirin lacagta hadda ay mushaar ahaanta u bixiyaan ayaka matalan dahabshiilay taalaa waa garta ama waxay taalaa salaam bangi waa garta ama waxay taalaa bangiga dhexe waa garta kooxdan waa la yaqaanaa militariga inta yihiin mushaarkooda cadadooda wuxuu waa la yaqaamaano waxaa loo shubaa bangigaas waxaa leeyahay intaas oo shaqaale ah dowladda leedahay u kala dir swish ugu yaacay efi blaskooda iyo servicekooda iyo wacda loogu kala diraa waa gartay ku dhacay nin walba number u dhacaya markaa numberkaasoo ah lacagtii mushaarkiisa ahayd waa gartay tan aad ishtaa 150 sugis 150 ku soo dhacay 150 number 150 kaagi dollar number ku soo dhacay waa gartay 150 kaagaas marka dukaanka waxa uga gadan kartaa waa gartay dukaanka taa uga gadan kartaa dukaanka raashin uga gadan kartaa hadaa tan waa la bixi kartaa cash waa la bixi kartaa okay dukaanka la okay lambarkaas daba jooga ilaa wali ani lambarkaas ma application number ku yimid oo kaliya mase waa lambar oo dawlad lacag xaqiiqa la hubo ma amarku sheegay leeso lacag dawladda ma taqaana iyada way haysaa lacagteedu way haysataa ma diidani taas markii lacag direeda rabto in lacagtan u shubto nimankan kalena ya waa gartay waxay la hadlayaan shirkadaha u qaabilsan lacag bixinta waa gartay oo macnaha u soo maraayka مثلا هذه ده شيء لا شو بكره $1,000,000 oo liya shaqaalaha reedka mushaarkoodii waay nambaradaas akoomaas ku kala shubaa leeyahay lacagtina daabshiil qaadatay akoomaas lagu kala shubaa waa garta hadhow nin walba akoonkiisu kala baxaatiisii laakiin lacag Soomaali oo intuu ku sarifto oo wax ku gato oo kunkan jacanaya ma haysto tawa ogna tawa dollar bisu haysta lacagta kunka aad waa isla meel dhignay yani waxa daba joogna waxay ahayd lacagtan kaleeto oo yani wadanka ka socoto si xawli wadanka kaliya hataa lama dhigi karo koonfurta Soomaaliya kaliya lama dhigi karo koonfur waqooyi iyo bari ka wada socoto haddana ana diiwaanka dowladaha adduunka hataa ku jirin ma ana ku sheegay mataqaanto wadan kasta saas maamula dadkan dad dagaal ka soo baxay waay dadkan dad horumarsan oo mataqaanaa
system diiwaan gashan oo la yaqaano ma jiro. qof walba waxa waaye laftiisa soo furtay bangiga soo furtay salaam bangi aan premium bangi uu tegay bangigu kasoo furtay adigu bis wuxuu soo mara oon dowladda hoose wuxuu kasoo qaatay aqoonsigiisa ID kaarkiisii. okay bangiga markaas ka register صح bangiga markaas ka register dowladda oo shaqeysa koontada register waa gartay hadhow lacagta koontada ku soo maray ku soo dhacay laakiin qofna ma haysto oo kuma dhihi karo aniga maanta 10 milyan oo nadiif kaashin Soomaaliya haystaa kun kaashin la haystaa kun kan 500 shilin 200 shilin 300 oo kala go'a ma jirto wadankeena. waa gartay waa kuna u yar lacag ku xigto kuna weyn ababo weyn lacag ku xigto waa dollar taa xaaj banaadi la horan lacag ku xigto waa dollar. okay hal mid marka biri haddii albaabada ay u xirtaan raggii furtay يعني بنكيدا صح بنكي عسكر احنا بنكي إن كلمة ما بعدين بنكي واي بنكيدا ضدك فرطي بريها دي الباب وحران صح شعبك مع أمك والله جيب هيك أسكو مغن شعبك عندنا أمك هيك أسكو مغن واي الدولة دي أمك نايت ما تقنابا أيضا هو استخطبه دولة دي الربا إن بنكي جيدا حق ومعمولة بنكي جيدا كلاي ها أيدي بنكي جيدا معمول أيدي بالعقد تهامبا ayadee ba dhigtaanba bangiga dowladda ay ka baqaaya macnaha oo maanta ninkii doorasho rabo oo yani u socda xagga dhaqaalihiisa xaggu ku sii shubana daabshiil ku sii shubana ama ku shubana tawakkal ama ku sii shubana shirkadu aaminsan yahay sababkaas oo ay wadada soo aragso ku shubta waa gartay maasha Allah kala kala jiro mutay qaybtaad ayuutada wadataa ya ayuutada waa ana arkay mutay واقف بدون بحاي على كموت ثاني. واقف. يسوي يسكور قبتها. صح. هبلا بحاي نيو محوس على حلوان على سكوك خرامة دي باشا متقنا يو. ورجع هذا محل هذا قرب جوكت. أصلا دين قبو تجا. واقف. دين تي مكو حلوان نخذو. واسوم ما قاس يقول أوكي. واي لا مشينو قلاك بدن. لا مش حتى. لا مرة مدحوينا لك الكيلو متقنا مرة وزارة لك الكيلو. جيبك فرامية. جيبك الفرام كاسدي. markaas dad iska bixin asaga waa gartay marka systemka dawladda maanta waxa waay dawladihii hore ilaa hadda labada dawlad oo wadankan soo maray mid caawa u hartay bil iyo xoogaa ya laba bilood iska dhacday 8 February ku tahay waa gartay 8 February mid ku eg oo dhaceeda iyo midii ka horeyso 4 sano soo dhameystay oo ku meel gaar ahayn macnaha labadaba yani wax weydiinaya xataa oo su'aal ka qaba xataa maakaniyo dhahay warniyo maalin kaliya Soomaaliya dad jooga ma u banaan bixinaa kunkii shilin in laga bedelo horta taariikhda waxaa la dhahay ayada is qorto sax taariikhdooda ay xusi doontaa horta raggan ilaahay kuma dara maalintay noqotaba ama soo daada ama soo dhaafsatay laakiinse midda meesha aniga aan weli aan daba joogo ama aan ka daba hadlaayo waxay tahay mi isleedahay marka in ay maalin soo baraarugaan يعني دهان بنك جينا هلا كان سدو بنك هبلوا مد الصوماليات أفرني وإنا هوس مدين بنكيدان بنكيدا أورلي هاي دتك الشعب كاب وإنا بنك الدولة ده هوس مدان مثل هذا إنا ده دونت تاس واحد عيدا متخانا واحد عيدا مركي دولة ده متخانا معناها ودن كاتو سيس وحروا ودن كان واحد جرو بنك وين وده حد ولد هاي سكاي واقفت waxaa lacag dhan bangigaas yaalaan ama shirkadii ha noqoto ama shirkadii ha noqoto ana cabsi ma qabo intii ta haystadii dagaal dhacdo kan dawladda gacanta ku jiraan واقفت ya oo bangiyada number haystaan fajriya واقفت laakiin atal Soomaaliya bangiga dhexe ee dawladda Soomaaliya leedahay qof aaminaya ma laha waa hadii qof aaminaya uu jiro taqaana asaaba laga furo lahaa akoontooyin waxa laga furo way لواجي هرا دولتي محمد شابري تذكي هرا بنجي كونتين كل هاي سما صح أي العجة هو دكتان أنا كفرانين لكن أنا كمان جوجل لكن سين مقال هانتي ما تقانا ويغفر لسمان صح ما في خبط العادي وحد والله ما يدكاس صح أوكي حتى بنجي كان دحي حتى فرن أو سيستم دولتي كل شقية حتى ما مملكة شركتها ودنك يا مملكة حدو هل ما فرن أو يعني سيستم دولة كوش قوي وطن يا بنك كده حد وده فرن بنك كده حد دولة الصومالية بنك كده حد وطن كا فرن وشقينا
qofad maano marka bangiga hadda waxay dhahday bangiga Soomaaliya wuu furan yahay laakiin se ummadda wuu furan yahay laakiin ummadda u furnay dowladda dhaqaalaha adduunka ku soo siiyaan canshuuraha dowladda soo gala waxaas oo maal dhigaa okay maadaama uu furan yahay ciidamada ama shaqaalaha dowladda mushaaraadka si uu siiyaan ma bangigooda ma ka maamuli karaan bangigooda laga maamuli karo waxa laga maamuli mataqaanaa bangiga dhexe dowladda kaarar oo bangiga dhexe u leeyahay ma bixiyo shirkadaha salaama premium bangi iyo salaama bangi ee lacagaha lagu shubo mushaaraadka shaqaalaha bangigaasi ka haystaan koontooyin aan waxa u fahmay inay naasnuujin shirkadaha tahay ileen dowladdu way keensan kartaa waayo wax qof privat oo keensado shakhsi ah ama company privat ah oo dowladda hostigin u keensaday dowladdu way keensan kartaa okay cashuuraadka dowladda ay qaado bankiga ku dhacda bankiga dhexe dowladda istos u dhacay dowladda bankiga dhexe ku dhacda waa la yaab waxay ugu tiri bangigooda lama aaminsano haddana si toos sugaal mar si toos bay ugu dhaceedaa cashuur walba ay qaadaan okay cashuurta ay qaadayaan mashini Soomaali bay ku qaataan mase waxay ku qaataan EV plus ma dollar lagu qaada lacagta bankiga ama allora marka halka hadda sa u raaco dollar hadii lagu qaado waxay soo maraysaa bangiyada ee shacabka kala leeyihiin fiiri aan warku sheego hata yaa cashuur laga qaadaa shacabka kan halahaado baawur halahaado ama halahaado guryaha hata lacag laga qaada xamar sanad kasta guri lacag laga qaada guryaha cashuur laga qaada $50 lacag ku $30 lacag ku laga qaada waa gartay waa anigu wax igu cusub baarto wax kugu cusub aan ku sheegay boorka iyo dekada lacag laga qaada ganacsatada ka degtay markii adiga ilaysa oo container ku soo dago container kaaga la soo qiimeeyo cashuurtiisii bangiga dhaxatigiisa lacagta soo shubay saaka fitaa soo qaadanay okay cash aan usub ama iswish ama EV plus aan ku soo bangiga dhaxal aan lacagta ka qorqad ka yimaadi waa gartay markaas abaabta dekada marka cashuuraha waxa ka dhamaysto oo cashuurta bixid alaabta raranaysa okay taasi waxa ka hadalnay waa cashuuraha waaweynka ka hadalay system anaka naqaana ma systemka waa system dowladeed way cashuuraha waaweynka ka hadashay laakiin cashuurta islaamta ayada gadeeday ama baatiga gadeeday ama baatiga wareejinayday cashuurta laga qaado xaqi ku bixi kartaa kulli boona ku baxda ama telefoon loogu diro ama cash ha u qaato $1 ha u qaato ama $1 ha u qaato bangiga dhexe tagaysa wax la daba joogo la og yahay dowladda wax kama noqon labada dowladda meeyay maqaaniyo wax badan kama noqon Soomaaliya qadiyo dowladda laakiin wuxuu waa qaateen ayaga dhaqaalahooda waa qaateen laakiin dhibka jir wax waayay wixii shacab ku soo laaba lahay cashuur waxa loo qaadaa markii cashuur laga qaado adiga hadda wadanka aad joogto cashuur laga qaada waa shaqeysa cashuurta laga qaadana 70% dibi wuxuu u gashaa dadka qaxootiga ah oo la wada og yahay صح عطيك كلمة واحد بيجي دولك لامية جديدك قبريدا ميل بيجي سمان ما أيق ويك لقادم لامية ده يعني باورتا يعني وحودة أما لامية كوساب سنة أما قلد أما وحول بس أتقانت كوساب سنة هذا وحول بقى يعني وح باور حجز عن شرط باورك عيال وسمايا عن شرط باورتك صحرات عيال وسمايا واتقنا ما اسكات wax laga qaada ama wax laga qaada maana wadanka kamaadina anaga wadankeeni yani wadankeeni yani wax walba ay isku qabaan wadankeeni ama taqaana masjid la dhisi lahay hay'ada dhisa adduunka kala caawida meelaha qaarkood jidka hadana ay kor si duman iskoolad fiican ma jiraan hadana hasta iskoolad ila furan dhaqaalaha hay'adaha bixiya Allah macaamid ku dhigan ana si kan fahmi karna ma garta laakiin waxaan ku hayaa inaysan jirin mawduucayna ka baxna marno in aysan jirin ilaa hadda wasaaradda maaliyadda inay isku xilsaarto kunkaan shilin iyo qaabkii loo bedeli lahaa inaysan jirin labadii dowladood oo wadankan soo maray 8 sano u dambeeyay midna ma ka fakirin sababka loo bedelaa lacala haddii baalweynta la waayo lacag kaloo bedelaysa ma hayno suuqyada yaa wax ka baayacaya warkaasaanu bogaaniga wallahi
إله نفض يرتصو ومض صبالة دانا هاي دبكان ما يرى كونكي أن كل لنا إلا هذا النهر تاجن إلهكم مدرنا هذا واي كونك سو كان وجري متى شنب قلق سلا وجرتي ها شنب قل شنطة بقولك كي يسجلني حتى أسقيا ولا سكرتها ويجرين لعيب بدن أمض صبالة عكيس أنا أنت أرجنا وشنب قل يكون شيلين ينال باطن حلو أنا دكتور متقنا مرة لما كن يسجلكي أو حتى بقال برعو لو سجلكي برعاتك تي وحدا عمرك وحقول عادي متقنا مال هوتيلاتي مال مقاياتي هوتيل يخايك كل بي وحاول وحارب إن العكس عرفته البرج ويقانين بالعكس أنا صرفت عليه هاي لعكتي أعرف أنا صرفته وحي جيمبار وصرف أوره متى جيمبار أنا بح العك أصلا إنه قط متقنا وابحي متى وادي وحن إيوي $5 $5 يصرفي إله إستكيس حمال أو بعضي واقرته حسي متقنك لعكتي أو متقنا كونتاكيشن أو دودي محام سياب ريكارتي واقرت أو جو ذي أو إيه وقت أبهم داوي أبهم إيه دا أبهم أو بعض بوحدة ويسي ورواية وحنا بسم الله نورت وامق سيلو حسابي مخالة تجي سيلو حسابنا أنا تان ليا واي وقياسكو قياسكو وحرام به لما تريده لاستيك لقى مفروض إيه ما ولا تلفرو قالوا قاك ده طبيعي لاستيك لقى مفروض لا عادوا كان لعب كيف جيد به لكن لعك كلا بيصير صارتين دكاس ما يلعكتوا هذا استعمال العكس في عام لعك بيصير صارتين لان لعك لان سومالا ولي صرف له وبيع له أو كوحدي سلواسي يبقى هالنقطة سطر وين متقنا لكن العقل هيستان ما شاء الله مدحدوده way dadaalin lacag bay u soo saareen bangiyo bay u soo saareen lacag bay soo saartay bangi bangiga salaam bankigeena kulli wuu ka furan yahay ma shaqo kuma laha wixii dawladda tan salaam banki ha noqdaan ku dhahay ama jini jaan dawladda hoostagaan kulli dawladda hoostagaan Soomaaliland waa gartay bangiga dhexe ee Soomaaliland hoostagaan lacagta waxa bixiya bangiga dhexe Soomaaliland hadduu salaam bangi lacag bixinayo ku shee Soomaaliland bixin kartay لا Soomaaliland lacag u bixinaa asaga لا نوع عاد وديبه ما تتميها يعني waxaan wada diraa ما يا dibadda xaqi jirtaa laakiin la diraa lafta keedaba door ma diro waaw لا شغله ثانيه هذا ذلك تستوي انا كوسي سودا تستوي ما شاء الله ما شاء الله اوكي halkan ugu bixina caawa iyo kunki maxaa daaray aniga iyo kabtan bilow aqyaarta oo idin salaamaya dhamaantiina barnaamijyadan waan soo badinaynaa insha Allah hadii ilaahay yiraahdo aqyaarta xaqiina waay like subscribe share comedy-ga like tahay cusub soo dhawaada soo dhiirigeliyay si aan soo dadaalana kana insha Allah